magaalada go'doonsan ee 2 milyan oo qof Falastiiniyiinta ay ku nool yihiin ee Gaza xalay waxay u ahayd habeen madow waxaana nalal iyo iftiin dadka magaaladan ku nool u ahaa hol cagan taalada badda bariga iyo waliba cirka kaga iimaanay ee ay soo tuurayeen Israa'iiliyiintu waxa la jaray khadka isgaarsiinta iyo internetka si aan wax wara looga helin xasuuqa halkaasi ka socda duqeyntan waxa ay bilaabatay habeennimadii xalay oo markaasi ay ciidamada Israa'iiliyiintu gudaha u soo galeen magaaladan maamulka Israa'iiliyiintu waxay sheegtay 100 kamid ah diyaaradaheeda inay ka qayb qaateen duqeymihii ay xalay ka geysteen Gaza diyaaradaha Israa'iil ayaa u muuqda inay xoojiyeen duqeymaha iyadoo xilligan la garaacayo waqooyiga iyo koonfurta xadka marinka Rafac sidoo kale iska horimaad ayaa laga soo sheegayaa Beit Hanuun oo waqooyiga Gaza iyo bariga Barjut halka oo goobaha ay ku dhow yihiin taangiyada Israa'iil isgaarsiinta iyo internetka ayaana wali hawada ka maqan guutooyinka Al-Qassam ee Hamas iyo Al-Quds Islami Jihad ayaa guulo kala duwan ka sheegtay weerar gaadma ah oo ay sheegeen inay ku qaadeen ciidanka Israa'iil oo gudaha u soo galay Gaza meelo kala duwan oo ay dagaaladan ka dhaceen waxa ay sheegeen inay askar badan ka dileen Israa'iil tiro gaadiid ahna ay ka gubeen waxa intaasi ku daray in tan iyo xalay diyaaradaha qumaatiga u kaca ay gurayeen meydadka iyo dhaawaca iyaga oo tilmaamay inay dib u celiyeen ciidankii isku dayay hawlgallo dhulka inay fuliyaan Israa'iil awood walba waxa ay heli kartaba way adeegsadeen xalay waxa ayna qaateen guuldarro ayaa lagu yiri hadalkan ilaa iyo haata oo barnaamijkan aad daawanaysaan khadka isgaarsiinta iyo kan teleefankuba waa uu ka maqan yahay magaaladan go'doonsan ee Gaza oo xalay duqeyntii abid ugu cusleed wajahaysay adeega mushaar bixinta payroll system ee bangiga Salaam waa adeeg ku sahlaya inaad ku bixin karto mushaaraadka shaqaalahaaga si fudud iyagoo hal mar mushaaraadka u wada dhacayo intii ay waqti kugu qaadan lahayd mushaar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyagoo jooga goobahooda shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaaraadka si fudud sidoo kale waxa uu leeyahay payroll report oo ah report ku sahlaya in dhammaan dhaqdhaqaaqa mushaar diridda aad dirtay aad ka heli kartid isla markaana aad daabacan kartid